بسم الله الرحمن الرحيم ودنيار waan salaamaya marka hore salaamantiin maanta waxaan baleeteen waxay ahayd in dhagaxa aanu idiin sharxo intaan dhagaxa inaan sharxay dhagaxa marka dhagaxan horta marka ugu horeyso waxa ka yimid see loo jijibiyo waxa maxaa jijibi xaasan u yaryariyay dhagax waan isweydiin saawnu ma yimaado qalab baa loo adeegsadaa marka dhagaxii waxaan isnidhi markii hore waxa weeyaan laba nooc uu qaybsamaa dhagax dixeed iyo dhagax buureed marka dhagax buureedku waa taqaaniin dhagax dixeedna waa la yaqaanaa marka dhagaxaas haddana bahal la yidhaahdo waxaa jirta iyadana yani la yidhaahdo crashing la yidhaahdo waadiin tafaasiil dheeraad ninka siinaya crashing maxaa tahay horta waan isweydiinaa crashing marka waxa weeye waa aaladii jajabinaysay dhagaxan aan soo sheegnay ee hore aan soo sharaxnay crashingku waa aaladda jajabisay aaladaasi markaas waxay leedahay afartaa konfeer waa afar shabag baa ku xiran 20 14 10 5 marka waxa weeyaan kuwaasay iyo kala shaldhayaan afartaas u kala saaraan marka afartaa nooc buu kala baxaya iyo niskii oo dhan kala u baxaya isaguna marka tan weeyaan crashingka ni sheegayo waxa weeyaan laba hamar bay leedahay hamarta koobaad waa hamarta dhagaxa waaweyn jijibisa hadana uu sii jijabana markuu dhagaxa waaweyn wuxuu tagayaa kaloo ka sii jijabinaysa xoog sii jijabinaysa yaryaranaysa afarta marka yaryaraysa taasi shabagtii bay tagayaa shabagtiina kala qaybanayaan konfeerid bay u qaybanayaan marka afartii konfeer bay u qaybanayaan nisku dhan kala gaar u baxaa marka waa halkan shay ku shubaysaa ama baawur baa ku shubaya ka dhow tolo dhagaxi waxa tii weyneyd taasina way sii jebinaysaa dhagaxii waxay geynaysaa hamartii kala tigaysa hamartii ka dhow sii jebinaysaa yaryaraysa halkana markaa soo saarta dhagaxa siduu u dhan yahay duruusyada ugu muhiimsan ee rabto loo baahan yahay inaad barataan waxa weeyaan horta waa inaan barano habkii loo qaadi lahaa sambal qofka marka laga qaadayo dhiig laga qaado adiga oo aragteen alabaari dhiig laga qaado haddana laga qaado saxar laga qaado adu marka waxa weeyaan inaga sidoo kale maanta waxa dhagax markaa timaado ama aad timaado meesha aad timaado jay aad wax ka qaadayso ama isfil ka qaadayso sanaad u qaadaysaa in yar baad ka qaadaysaa waad soconaysaa haddana kolba in yar baad qaadaysaa waad ku soo wareegaysaa meesha ay taallay jaydu ama ciidu taallay ama isfiltigu yaalay saasaad u qaadaysaa yaryar baad qaadaysaa marka waxaa loo baahan yahay in cayinadan aad qaadayso ama sambalkan aad qaadayso uu matalo dhammaan jayga meesha yaallo dhan shayga koobaadeen u baahan ugu horeeya waxa weeyaan waa inuu waa miisaan ugu horeeya waa miisaanka waad la socotaa marka miisaan haddaad haynin shaqo kuuma soconayso miisaanka aad la socotaan waad arkaysaan marka miisaankaasaa loo baahan yahay ta ugu horeeya kow la socodastaa miisaanku waa kow marka kan aad arkaysaan wuxuu miisaamaa 30 kiilo miisaama wuxuuna ka bilaabmaa 1 gram ka bilaabmaa 30 kiilo uu miisaama marka la saaro saaw la soco marka miisaanku ku kala jireysna oo ka sii naqan oo miisaankiisa ka dahabka loogu talagalay wuxuu miisaama oo kawdan 3,100 gram buu miisaama wuxuu ka bilaabmaa 0.01 buu ka bilaabmaa kaasi uu kasii yaryahay uu kasii daqiiqsan yahay yani waxa weeyaan wuxuu miisaamayaa xataa waxa ugu yar buu miisaamaysaa waa kii dahabka loogu talagalay tana maxaan u baahanahay waxa la yidhaahdo siif analysis waxa la yidhaahdo siif waa shabakyo oo daldalool leh waa shabak waa nin muuqda daldalool buu leeyahay number uu sitaa number uu leeyahay mid kasta numberkiisa ku yaala numberkaas wuxuu tilmaamayaa waa code oo Mareykanku leeyahay ASTM la yiraahdo ama yaa ku kala Ingiriis ku leeyahay jiro oo la yiraahdo BS la yiraahdo waa kuwa arqamta sifafka min lambaradooda dhan halkaas ku taala marka sifafkana waxa weeyaan iyaga marka waa shaandooyin loogu talagalay number kale leeyihiin way kala waaweyn yihiin wayna kala yaryar yihiin waa la dul dhigayaa kolbasay muwasafaadka lagu siiyay specificationka lagu siiyay ay tahay ayaa la isku dul dhigayaa arqaamtaas koobaad ka labaad ka saddexaad waa numberadaas la isku saaraya caynad baad miisaamanaysaa marka مثلا 500 ka soo qaado gram
shantaa boqol markaad garaaneed miisaanto shabuugyadii baad kii weynaa ilaa kii u yaraa isdul yaalla ayaad dusha kaga shubaysaa marka waa shaandhaynaysa waa ruxaysaa si fiican baad u ruxaysaa midba walba midka in baa ku hadhaysa oo kuwaas waa dul yaalla mid walba waxaa ku hadhaya in baa ku hadhaysa dhagaxuu kala yaryaryahay ciiddu way kala yaryar tahay marka dusha markaad kaga shubto waad ruxaysaa markaad si fiican u shaandhayso ayaa markaa waxaad arkaysaa dee mid walbana in baa ku hadhaysa kadib qayb baa ku hadhaysa qaybtaasaad miisaamaysaa xisaabaadka waa inii sharxi doonaa laakiin qaybtaa baad miisaamaysaa mid walba qaybta ku hadha ayaad miisaamaysaa arqaamtii siif waa kuwa inii muuqda marka ikhtibaarkan baadhitaankan waxaa la yidhaahdaa siif analysis baadhitaanka materialka marka loo baadhayo siif analysis baa la yidhahda waa magaciisa dhan siif analysis haddaanaan magacaanta baran haddaanaan qalabka lagu shaqeynaya anaan baran baadhitaankii ma baran karay ka dhigan tahay haddii lagu yidhaha siifka soo qaad ma garanaysa siifkii wuxuu yahay hadduu lagu yidhaha dhagaxi maxaa jajabiye lagu yidhaha dhagaxi ma garanaysa wax jajabiye marka waa in la fahmo maxaa lagu shaqeynaya waxa loogu talagalay waa miisaan hadduun jirin shaqadu ma socoto laabka dhan waxaa lagu wadaa waa arqaam handasi oo ingneerin loogu talagalay arqaam handasiya wax lagu baaraa waa muwasafaad dawli lagu socdo ee STM iyo la yidhaahdo British Standard la yidhaahdo labadaas siifafkani marka way kala duwan yihiin waxaa jira qaab xajmigoodu weyn yahay saa u ballaaran yahay laakiin daldaloolku waa isku nambarku waa isku mid nambaradu waa isku mid laakiin weelku weel ahaan uu ka ballaaran yahay baaritaan inaan sameyno waxaa ka muhiimsan horta inaan baranno dhagaxu xaggu ka yimid qalabkan shiidaya dhagaxa inaan ogaano laabkii aan gallo oon ogaano waxaan lagu baaray qalabkan lagu baaray maxay yihiin oon baranno baaritaankan magaciisu muxuu yahay inaan baranno taasa ka muhiimsan markaa taasaan jeclaystay inaan idiin sharxo horta miisaanadii in la adeegsanayo siif analysis waxa la yidhahdo siif nooshiya bukaan arqaamla in la adeegsanayo crashinkii waxaas oo dhan ka muhiimsan markaa saa ula socda insha allah oo like dhaha sharena dhaha waanu duruusti waan soo wadnahay